asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. moodalka Fable 5 ee Anthropic ee soo bandhigtay weekan waa la joojiyey. dowladda Mareykanka ayaa waxay ku amartay shirkadda Anthropic in accesska Fable 5 ay ka joojiso qof walba oo aanan u dhalan wadanka Mareykanka. even xataa hadduu ku jiro ama hadduu degan yahay Mareykanka uu ka shaqeeyo Anthropic uusan laakiin u dhalanin wadanka Mareykanka ma isticmaali karo, which means dadka oo dhan ha laga xiro waaye oo ka soo hara adduunyada oo kale oo dhan. because modelkan waxaa la helay jailbreak basically waxa waaye qaab loogu gudbi karo waxyaalihii oo security guardka la hordhigay, qaab loogu gudbi karo ayaa la helay. so dowladdu waxay dhahday marka arrinkan waxay national security ku tahay oo dowladda Mareykanka ay national security issue ku tahay. marka waxaa la rabaa in aad joojisaan accesska. so Anthropicna arrimahan aad ay ugu heshaa wiigi hore waxay qoreen blog dheer ay ugu hadlayaan arrinkan in dowladdu ay awood u yeelato inay joojin karto moodalada, inay xiri karto, in waxyaalahaas ayaga bush gareynayo. shirkadaha kale oo dhan hooshan kuma jiraan, moodaladooda useradooda waxooda has ka isticmaalayeen. laakiin nimankan CEO-gooda oo la dhaho Dario Amodeo wuxuu aad iyo aad mar walba dowladdu ugu adkeeyaa inay dowladdu soo gasho hooshan oo ay amaro ka bixiso inay policies loo dejiyo security. wax macnaha arrimahaas aad ugu shaqeeya. Anthropicna fikradaas aad ay u isticmaashaa maadaama asi oo CEO yahay. so marka waxay leeyihiin arrinkan waaba ku fadhinay, waa sugeynay. hadda waxaan sameynaynaa si ku meel gaar ah in aan joojino dhammaan isticmaalka oo Fable. haddii aan fiiriyo cloud userkeyga ma access garey kari meeshaan haddaa fiiriso Fable waxaa leeyahay unavailable right now because ma isticmaali kari maadaama aanan US ahayn ama US aanan u dhalanin. so marka Fable 5 hadda unavailable waa laga saaray release-ka. so waxay leeyihiin waa soo laabanaynaa, waan la shaqeynaynaa shirkadda si ama dowladda si arrinkan loo hubiyo. marka arrinkan waxaa la sheegaa in Anthropic naftirkooda waxay dhaheen barnaamijkan hadda jailbreak la helay anaga hataa waa aragnay dhaheen, laakiin shirkadda OpenAI midkeeda xataa oo GPT 5.5 ka xataa ciladan wuu leeyahay, anaga kaligeena ma ah. modelkeeda oo hore xataa oo midka caadiga daily userka ah oo GPT 5.5 xataa waa loo isticmaali karaa jailbreak hadda ay sheegaan. soo kale waxaa leeyahay shirkadda Amazon shaqaale kamid ah ama researchers kamid ah ayaa waxay ogaadeen in jailbreak uu jiro ama ay dhaafi karaan security guardskii lasoo dhigay, kadibna dowladda ayagaa u report gareeyay. marka ayadan newskaas dhankaas wuu ka jiraa oo in arrimahan ay report gareeyeen shirkadda Amazon shaqaale kamid ah ama researchers kamid ah. so arrinkan waxay ka dhigan tahay marka ma isticmaali karno Fable ilaa dib loogu soo fasaxo. hadday noqoto asal naftirkiisa wuxuu ahaa ilaa 2 bishan June ayuu fasaxaa. inta kale waxay ahayd in aad isticmaasho API ahaan u isticmaasho videoga hore ugu soo hadlay haddii aad danaynayso inaad ogaato xog noocaas ku saabsan aad sii daawato. marka ka xumahay modelkan model cool oo ah runtii awood badan leh, waxyaalo badan oo impossible ah possible ka dhigaya, laakiin wali waxaan sii isticmaalaynaa OBS 4.8 keena iska sii isticmaalaynaa intii oo ninkan warbixintiisa lagu soo dhaaf. so marka intaas maanta newska ahaa ama waxyaalaha technology ka cusbaa oo runtii gilgilay adduunyada dhan. macnaha gilgilay waxaan ka wadaa qaybta tag oo dhan. macnaha arrinkan aad loo xiiseynaa modelkan nin walba laba user saddex user la gadanayay si awsan ciyoga ilaa markaas iyo wuxuu dhameynaa tokenska zaid u isticmaalayay 2 times ayuu ka badnaa obaska caadiga ah. marka waxaan rajeynayaa insha Allah inay dib u soo furaan anagana ka faa'iideysan maadaama users aan nahay. runtii arrinkan waa sii fogaan doonaa sidaas leeyahay muddooyinkan soo socdo ama sanadaha soo socdo waxa aad u badanan doono in waxyaalahan la sameeyo. waxaa hadda lagu xantaada qolooyinkan Europe oo kale. Europe model hadda rasmi ah oo ay leeyihiin ma jiro. mid waxaa jira wadanka France laga leeyahay oo Mistral mia something la dhahayo. midka model kaliya leeyihiin waa marka model oo saas u weyn ma aha. sababtan wax kale ma aha leeyahay shirkadaha Europe inta badan waxeeda policies waaye intaan wax la sameeynin policyada ka horeeyay in waxaa inta laga bixiyo kan hala bixiyo saa la sameeyo. macnaha amaradooda aad u badan yihiin in wadooyinkooda ka soo gudub. Mareykanka marka wuxuu speed u taabtay maalmahan oo saa ugu horumaray waxay ahayd wax cilnaa ma jirin, wax policy lahaay ma jirin. inta badan dowladda waxyaalaha u qornay dhan wixii hore ahaayeen ee ay wax policy ugu degan malaha.
marka wax celinay iyo wax oo controlay ma lahayn shirkad walba intay soo saari kartay soo saaraysay soo hadda marka in la iska daba imaanaya u maleynaa aysan soconaynin in waxaan mar walba model cusub week walba la soo saaro way adkaa doontaa in model la soo saaro mar kasta because dowladda hadday dhahdo model ba soo saartiin anagana soo marsiiya jeekina ku sameynayna waqtiga qaadanaya dowladdan waa iska ogtihiin xaaladaheeda soo marka hadday dhahaan policy noocaas dil sameeyo oo la dhaho dowladda ayaa controleyso so waxaa laga yaabaa AI researchkeeda in uu hoos u dhaco oo waqti ay qaadato in model cusub la helo oo sida speedka hadda ku socon aan helweynin marka intaas aan kusoo koobaa videogan let me know sida ayuu ku saameeyey ma isticmaalaysa modelkan mas-uuli maadan tijaabinin so yeah bye for now